haddaan ku weydiiyo su'aal qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga muxaafidka kulmiye waxay mar walba ku celceliyaan Ismaaciil kama weli tanaasulin federaalkii arrintaas ay ku celcelinayaan waxa la yiraahdo wax ka jira ma jiraan anigu federaalka 2007 ayaanu isu badheernay oon diiday inaan saxeexo haddii aniga wasiir khaarijiye ah kolkii baasaboorka la sameeyay in la yiraahdo haddii baasaboorka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland labadii midoobay ahaayeen kolka anigu dawladda Soomaaliyeed baa jirtay arrinta federaalka ay ku celcelinayaan waa hore ayaan kala soconay kala tagnay anigu laakiin se ka daadagay ka tanaasulay federaalkii iyagu waxaan weydiinay inay ka tanaasuleen mariya aroolnimadii iyo in kale waxaad ku biirtay xisbiga mucaaradka wadani maxaa xisbigaasi ku doortay ku biirtay xisbiga waxaan ku doortay iyadoo oo kolkan sanad iyo googo aan wadanka joogeen aad iyo aad ugu fiirsaday siday hadilmee maxaa arrimuhu yihiin axsaabtu siday u dhisan yihiin mustaqbalku siduu yahay dadweynaha hadilmee maxaa hiraalkooda iyo hadilmee darooskooda siday siyaasaddu tahay dhinac kasta ka eega waxaan arkay xisbiga maanta hadilmee ay u babacdhigi kara dhibaatada Soomaaliland taagan ee wax ka qaban kara ee isbedel run ah keeni kara inuu yahay xisbiga wadani saasaan ugu biiray qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga muxaafidka kulmiye oo iyagu warbaahinta la hadlayay waxay sheegeen in marad ku sugnay Dubai aad sheegtay in Soomaaliland dhalantay tahay haddana Soomaaliland bad ku sugantay arrintaas maxaad maya waxa anigu aan ka hadlayay dadka intay Soomaaliland afka ka yiraahdaan hoostana wax kala ka wada iyo beenta hadilmee dadweynaha hadilmee lagu indhasarcaad loogu sameeyay ka hadlayay laakiinse anigu waxaan hadilmee maanta arkaa kolkan u fiirsaday siyaasadda Soomaali guud ahaan siday tahay 60kii sidii labadii ku midoobay 60kii ay isugu yimaadeen maanta inay ku habboon tahay dadka Soomaaliyeed amba koonfur ha joogeen amba waqooyi ha joogeen labadii dawladood in dhidibada loo aaso iscaawiyaan wax wada qabsadaan sidaas koonfurna wax loogu qaban karaa Soomaaliland hadilmee maxaa dawlad hagaagsan sidaas taasi hadilmee waxay hadilmee maxaa hoosta ka xariiqaysa arrin had iyo goolaala nimankan maanta hadilmee maxaa arrimahan sheegaysan ku hadaaqaya anu isku diidsanay waxa weeyaan 60kii laba dawladood oo midna Soomaaliya la oran jiray oo Talyaanigu xukumo jiray midna Ingiriiska la oran jiray midna Soomaaliland la oran jiray Ingiriisku xukumo jiray ayaa midoobay labadaasi isu tageen waxa loo baahan yahay wada joog iyo kala tagisba inay wada hadlaan inay hadilmee maxaa arrinta wada falanqeeyaan iyagoo iska raali ah ay hadilmee maxaa kolka halka hadilmee aan ku kala duwanahay waxa weeyaan iyagu waxay aaminsan wax la yiraahdo kala go oo waxay u haystaan inay ka go'een Soomaaliya aniguna waxaan u haystaa Soomaaliya iyo Somaliland laba barbaraan hal iyo goolaal ahaayeen arrintuna inaan ahayn mid ka go'aysa wax kolkii horena isu tagay imkana kala tagaya oo hadilmee laga maarmaan ay tahay in labada dhinacba arrintaasi ay ka soo dhamaato laga wada hadlo la dhamaystiro hadilmee wixii dan u ah labada dhinacba wayahay Ismaaciil waxa jirtay komishankii doorashooyinku ay sheegeen in lacagtii loogu talagalay in lagu qabto doorashooyinka madaxtinimada 2017 ay qayb aanay haynin arrintaasi ma loo oran karaa dib bay u dhigaysaa doorashada dib bay u dhigaysaa kale ma waxa weeyaan waxay cadeynaysaa dawladda kulmiye inay fashilantay bay cadeynaysaa waxa weeyaan kolkii labaad ee arrimo xasaasi ah ee wadankan masiirkiisa hadilmee maxaa taabanaya ay hadilmee maxagal daaciso dib u dhigto isku daydo hadilmee maxaa dareenka iyo ujeedada iyo adarooska dadweynuhu inaanu hadilmee rumoobin oo ay xukunka iyagu hadilmee maxaa sii fadhiyaan kolkaas dadka Soomaaliland ma ogola arrintaas caalamkuna ma ogola dawladaha jaarka ee aynu hadilmee dana waaweyn iskaga xiriirsan yihiin ma jecla kolkaas waxa la qaatay in hadilmee maxaa doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo wixii hadilmee loo baahan yahay ee doorashadaasi ay u baahan tahay dadka Soomaaliland way ku filan yihiin inay waxyaalaha ka dhiman dhamaystaan
وانا الديار وحي هدلمي دبو دغانا waxa weeyaan fashilaad runtii ay hadilmay la timid dawladda hadilmay ma kulmiye waa Ismaaciil waxa la sheegayaa in hadii doorashadu inay dib u dhacdo ayagu dan u tahay xisbiyada mucaaradka iyagu laftooda ay dabada ka riixayaan maadaama ay iyagu gudahooda diyaar ka ahayn oo laftooda ay doonayaan in doorashadu dib u dhacdo maadaama ay u diyaar ahayn doorasho galaan arintaas taas waxay cadeynaysaa in hadilmay kulmiye uu danta gaarka ah ka horeysiinay danta guud ee hadilmay wadanku waxay ku dhisan tahay ku salaysan tahay in hadilmay maxaa aha doorashadu waqtigeeda ay dhacdo isbedel run oo hadilmay xaqiiqi uu wadanka ka yimaado waxyaalaha ay ku hadilmay kari weeyday kulmiye inay wadankan ka qabatana wadana waana u diyaar inuu qabto waanu ku filan yahay ambaha noqoto dadka hadilmay deegaanka Soomaaliland ha noqoto ambaha noqoto hadilmay maxaa aha mandaqada aynu ku noolahay amba caalamka aynu ku noolahayna si wanaagsan inuu la jaan qaado oo hadilmay dhibaatooyinka maanta Soomaaliland ka taagan uu wax weyn ka qabto ayuu hadilmay maxaa aha wadani u taagan yahay kulmiyana waxaad moodaa inuu intii uu hadilmay arinta xagal daacin karaba وهدلمي محاها كشقيني إنه حق الداعية لكن درينك الدتك يهربتانك الدتك أي هذه يقول على واحد استكوين. الوا إسماعيل حسبك أتكثر سنتها معارض كوطني شرويني كبار يقولها بحل ودور المشرح من الحمية وكحجينك لما قرب بكرة شبي حدنا لما قرب يمكن وكتاجي أرنتيسي ووانتينا فراها كبحذي ما لو ركض عمركي يدقوا عاد كل صوبيرتين أما بس كل صوبيري أيو حسبك يعني تفرارق أيو كلا ما حزبه waa sidiisi wax kala jabina hadilmay kuma dhicin waan fadhiyay anigu kolkii hadilmay doorashadu dhacaysay hadilmay Axmed Muumin Saad kolku arkay in hadilmay maxaa aha aqlabiyad aad u ballaaran hadilmay maxaa ay u codaysay ninkii ay tartamayeen ayaa hadilmay maxaa aha ka baxay meesha waxaana ahayd wax hadilmay maxaa lagu sii talagalayba wuu ogaa inaanu hadilmay meeshaas ka soo baxayn cid hadilmay arinta ka dambeysana dadka Soomaaliyeed caalamku uu wada ogsoon yahay xagal daacinta dimuqraasiyadda iyo hadilmay horumarka hadilmay wadanka cid hadilmay maxaa doonaysa ku tilmaamaysa inuu hadilmay maxaa laba u kala fadhiyo wadani lama u kala fadhiyo waa sidiisi waa jiraan dad hadilmay maxaa kale dooda kale hadilmay arrimaha iyo barnaamijka hadilmay siyaasadeed iyo hadilmay horumarka hadilmay wadani damacsan yahay kuwaasna hadilmay waxaan hubaa in si wanaagsan loo wada hadli doono si wanaagsan loo dhamaysan doono wixii laakiinse wax hadilmay maxaa laba garabo sida hadilmay u ciido kale maanta ay tahay hadilmay wadani u yahay cid kasta way ogsoon tahay inay tahay dhalanteed iyo cid isku maaweelinaysa wax aan jirin